waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka sare ee gobolka Banaadir ee suurtageliyay shaqadan quruxda badan inay maanta dadka halkan ku dhaqan oo intaas oo sano ku noolaay oo duruufta ka jirto iyo adeeg ay u baahan yihiin fogaanteeda ee xarunta degmada mararka qaar soo gaari karin ma xarunta gobolka adeegyada qaar looga baahnaa in ay maanta ka saacideeyeen shacabkii in meel loogu adeegi karo oo qurux badan oo dawladii ay fariisan karto shacabkeedana ugu imaan karo in laga hirgelinayo waa ujeedaan maanta dhagax dhigan waaxdii barwaaqo ee degmada warta nabadda oo aan dib loo dhisayo si casri ahna loo hagaajinayo xaruntan waa xaruntii bulshada loogu adeegayo annaga waxa naga go'an goobaha danta guud ee bulshada loogu adeegayo inay noqdaan goobo bulshada u adeega goobo runtii bulshadu ka heli karto adeegyada ay u baahan yihiin oo dhan muddo ayaan soo wadnay daadejinta maamulka iyo adeegyada haddana u jeedaan awal waxaan dhisaynay degmooyinka xarumahoodii hadda waxaan u gudubnay waaxyihii wada arkaysaan waaxdii Oktoobar ee degmada waabarina soo dhagax dhignay maantana halkan joogno marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay si maamulka gobolkooda kugu adeego waxa loo baahan yahay in ay kaalintiina ka qaadataan